السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا أصحابتي الغالية دمانتين أتبني سلامية وولاشين عاشا عاو حنيني هيا شاه لغا يابي والله يابي أدير يابي شاه لغا يابي برعاويني هيا شاهاس أنيقا أيا سود تشابيي لبدي كوني اللحية طبانكي إلا حتى وان استعمالها قرقيقا مرقنا لغا موايو عاد بانو جعلها سببتانو جعلها وحي تحوية على الاستاك فرابدان أيان ليهاي كلي دين عيب maaha ayaan malaynayaa calool istaag fara badan laakiin calooshu muhiim waxay tahay sababta aan la sheer garanaya waxay tahay qofku haddaan calooshiisu subaxii aanay nadiif noqon ma suurtagelayso in maaragtay uu caafimaadkiisuna fiicnaado muhiimaddu waxa weeye inkastoo ay ku xidhan tahay qofku wixii uu cuno kolba uu helo ay ku xidhan tahay caloosha waxaana jilciya caloosha inta badan waxyaabaha healthiga ay ka mid tahay spinachka koostada waxyaabo aad u cagaarkoo dhan ayaa caloosha aad u jilciya inaguna inta badan haddaan Soomaali nahay ma cuno waxyaabaha waxaynu cunaynaa bariis baasto hilib salad adduunyo macmacaan xalwad waxaynan garanayn ayaynu saa u cunaynaa marka waxa weeye muhiimaddu waxay tahay inaad calooshaada ogaato caloosha waxay kale ka caawinaysaa haddii caloosha ku dhaqaaqdo wajigaaga midabkiisu isma bedelayo finanka waad ka raysanaysaa neerfooska waad ka raysanaysaa xitaa waxa jirta marmarka qaar aniga dabeecadayda oo kale calooshu iskay taagto kale waxa noqdaa diiqad waan dibiraa waxaad moodaa 6 bilood oo uurayna leeyahay maanta maxaa iga khaldan calooshii bay barartay maxaa igu dhacay maxaa ay kanayay marka shaahaas ayaan yahay caawin la sheer gareynayaa qof kasta wadanka uu joogo uu ka heli karaa uu soo iibsan karaa siyaabaha aad u karsanaysana waxay ku jirtaa galka aniguna waan ku sharaxayaa qaabka anigu aan u karsado waa sidii shaaheeni caadiga ahaa ee bigayska ahaa oo kale waxaad samaynaysaa digsi ayaa dabka saaraysaa ama kildhi kolba ka haysato dabadna markay biyo ku kululaadaan ku karaan laba rogaan xoog u karaan ayaaba kale karitaanka luqada badan baa lagu leeyahay laakiin anigu xoog isu laba rogaan ma leeyahay markay xoog u karkaraan bad qaadaysaa xabad shaaha ayaad ku dhex ridanaysaa ama waad ku karinaysaa shaaha laba siyaabood baad samayn kartaa bikeeriga markay biyo soo karaan xabada shaaha baad ku dhex ridanaysaa waxaad u dayn kartaa 30 minute ilaa 5 minute inta u dhaxaysa way ku qoran tahay qof walba isaga arki doona insha Allah ayaad u daynaysaa sidoo maaragtay kuugu dago oo uu kuugu maaragtay kuugu hagaago ama ku kari oo dabadna 5 minute markuu ku soo karo dabadeedna ka shubo isagoo diiran cab waliba shaaha markaad cabayso ama marka kuugu horeysa ha cabin maalin adigoo doonaya inaad suuqa wareegto waa madnuuc haddii adigoo suuqa wareegaya aad tirada shaahan cabaya ceebay tacaal ba ka dhacaysa basaskaad ka siibanaysa ma garanaysa wallahi runtii sheegay waa aniga igu dhacday marka idinku guryihiina jooga oo maaragtay aadan islahayn meel bad aadaysa habeenkii ku tuuro dabadeedna subaxiina nadiif waxaad noqonaysaa mara la qasaalay oo labaatariijada lagu riday qasaalada dharka lagu riday ayaad noqonaysaa fudaydna waad dareemaysaa calooshi waxaad soodhanaysaa tolo waxaan ma bila aadan bay ku jireen marka caawa wax jira dad badan oo waayeela wax jooga qurbaa jooga oo aan cunto wanaagsan cuno koodhanaya caloosha maandhay taagan maxaan sameeyaa marka waxaad isticmaali kartaa shaahanna wuxuu mamnuuc ka yahay waana nii sheegaya waxyaaba uu mamnuuca ka yahay shaahan laba siyaaboodba waa loo cabaa caloosha ku socota iyo in la isku dhuubo oo qofku miisaanka ku rido magaciisa halkaasaan nii soo dhigayaa waxaad samaynaysaa YouTube-ga ayaad galaysaa YouTube-ga ayaad ku ogaanaysaa macluumaadkoo dhan anigu YouTube-ga kamaan keenin laakiin anu waxaan ka keenay gabar Soomaaliyeed kule clipkayga way daawan doontaa baan malaynayaa walaasha iyo joogta Faransiiska ayaaba ila sheer galaysa 2016 dhamaadkiisii saasan shaaha ku hela iyadana gabar cadaan oo Faransiis ayaa la sheer garaysay oo miisaan iskaga riday laakiin anigu ujeedadanu cabiy miisaan ma yahayn anigu calool istaag baan lahaa calool istaag ma cabaayay marka adigu waxaad samayn kartaa shaaha laba waxyaabood oo mamnuuc ka yahay wajida kule inaan dhuwa dhax yara ku qoran waxaad iska ilaalinaysaa haddaad uur leedahay shaaha ma cabaysid oo ku qorantay akhri wax aanad akhriin afkaaga saarin haddii aad ilma nuujinaysana shaahan ma cabi kartid labadaaba waa ka mamnuuc sababta in la sheer gareynayaana waxay tahay qofku markuu isagu result helo ama wixii uu sameeyay uu isbedel ku arko aad bay u fiicanta inuu bulshada la wadaago oo soo bandhigo marka aniga sababta inuu u soo bandhigo wax jirta hadda goor wax jirta habla la sheer gareeyay aniga xaggayga khaaska ah hablu waxay iga codsadeen mid walba inay shaah hesho maadaama habla iga codsadeen mid walba shaah inay hesho
anna waxaan sir u bandhig bulshadaada si ay u soo gataan oo u ogaadaan waxtarkiisa ay u arkaan qof kasta oo maanta shaahan isticmaala ama si hore u isticmaalay ama se youtube-gaygan iyo clipkaygan arka hoostaha igu reeba waxa uu la kulmay shaahan marka aad jirkaagu la qabsado ma yeelanaysid maalintii oo kale ma yeelanaysid maaragtay calool shuban fara badan laakiin marka ugu horeysa ee jirkaagu uu baroo yahay shaahan laasim caloosh way xoog bay ku soconaysaa marka totalis maalin adigoo suuq aadaya ha isku cabin anaga hadda koor igu dhacday ma garatay waa lii iska ilaali laakiin habeenkii markaad seexanayso waxaan guri digsigaaga yar dabka saaro in koob bikeeri barkii koob iyo adigu koob hal bikeeri de shaah adigu caadiya sidii koob shaah oo aad cabayso oo kale koob shaah koob bikeeriya iyo barkii digsi dabka ku shubo xabad caleena ku rido haddaa sitaa biyo way kugu bateen caleentiina way ka yartayna 2 xabad ku ridan kartaa dabadna 2 bikeeri laacib marka qof kasta waxa kula talinayaa oo caloosh taagantay caloosh waqti ku taagantay ma ogtahay in aan caafimaad haysan ma ogtahay in maqaarka jirkaagu uu maaragtay isbedelayo oo fiinan waxyaabo aynaan garanaynin cuncun oo kale maqaarkaagu inuu isbedelo oo kale laakiin calooshaadu markay nadiif tahay adiga fududaanaya inaad boodo ayaad rabtaa calooshana waxa nadiifiyo xaweye dadkayga Soomaaliyeed waxa kula talinayaa calooshu waa muhiim caafimaadkeena ayay ka mid tahay waxa muhiim ah qofku inuu isticmaalo cuntooyinka wanaagsan healthiga ah maaragtay aad isleedahay waxaad ka heli kartaa maaragtay caloosh inay ku socoto oo aad caafimaadkaaga u fiican aan sonkor iyo saliid iyo bariis iyo hilib iyo daqiiq hilibka waa la cunaa bariiska waa la cunaa baastada waa la cunaa laakiin waxa waliba xadad iyo qiyaas bay leeyihiin haddana iminka idan digsi bariis kariya dabadna aan saxni way ku soo shubo doonta intaan miiska saara carruurteeda kaalay soo dareera maama doonta dhinaca kaga qabto dee xuduud ma yeelanayo daahir ya shams bay sheekadu noqonaysaa laakiin waxa waliba qiyaas ayay ku cunaan iminka dadka cadaanka haddaad u fiirsato 95% iyaga inaga cunto badan sababta inaga cunto badan waxa weeye cuntada ay cunayaan kaloriga ku jira ayaa qiyaasan cuntada ay cunayaan cabirka kasta oo ku jira waa qiyaasan yahay sidaa darteed waa inay maalintii jirkooda wixii u baahnayo dhan ay cunaan tufaax cunaa biyo cabbe marka wax waliba aad buu fiicantay biyo faraha badan lana waxay ka qayb qaadanaysaa caloosha inay ku jilicdo marka waxaad samaysaa markaad shaahan subaxii karsato habeenkii karsataan ka wadaa habeenkii markaad seexanaysa uun isticmaal waliba weekendiga oo kale maalmaha aad guriga joogto ayuu aad ku anfacaya inta hore aad cusub tahay weeye anigu ninka waan iskala qabsaday subax walba dabkaan iskaga ridaa waxba ila maaha laakiin imika idinkoo kale qofkii de doonaya aan weli baroobayn ee ku cusubi uma fiicno inuu maalinkii intuu isticmaalo banaanka ugu baxo marka maalinka dad banaanka ugu baxda waxaa dhici karta de sidaan kuu sheegay inaad maaragtay ka siibato basaska dhexdooda marka taasina iska fahmaysaan baan u malaynayaa waa riyo sarbeeba qoraaladiisa halkaasi ku qorayiin macluumaadkiisa oo dhan informationkiisa oo dhan waxyaabaha loogu talagalay inaanay isticmaalin dadka loogu talagalay inay isticmaalaan waxyaabaha uu tarayo 30 minute kadibna waxa ku suuligeed gelaysaa baa ku qoran insha Allah idinkuna tijaabiya qaalina lama siiyo 5 euro 6 euro la siiyaa kale noocyo badan buu leeyahay laakiin noocaas ayaa aad u fiican marka noocyadaas aad u wanaagsan noocyo badan buu leeyahay laakiin anigu kan jeclay waa ka marka insha Allah Germany xitaa waa laga helaa Faransiiska kale waa laga helaa wadamo badan baa laga helaa marka aad u fiican yahay caawintaasaan rabaa inaan la sheer gareeyo muhiimaduna waxay tahay wixii adigu aad la kulantay ama wixii adigu aad aragtay qofka walaalka ayaa inaad la sheer garayso waxaana fiican wixii aad run ku ogtahay inaad bulshadaada u bandhigto aanad wax maaragtay aad isleedahay berri ka maalin ama qofku dhibaato u keenaya inaad dadkaaga la sheer garaynin marka waxaan ugu talagalay inta caawinaynin la wadaaga dhammaan marka waxaan kusoo gabagabeynayaa insha Allah in maaragtay kulay halkaas sawirkiisa inii soo dhigi doonaa channelku waa channelkiini sii share gareeya subscribe ta la dhaafina waxba maaragtay micna saasa male qofka walaalka ayaa inaad dheeri geliso inaad tala wanaagsan u reebto haddii aad isbedel ka soo dareento oo aad soo aragto waxyaabaha aan ka sheekaynayo dhanna in aad maaragtay hoosta igu soo qorto insha Allah sababta keentay caawina in la sheer gareeyana waxay tahay hablo badan ma shaahan la waraagay
la wadaagay habliba waxay iga codsadeen markaa inaan u sawiro markaa waxaan is iri maadaama ay dadku laga yaabaa dad badan oo danaynayo maanta u baahan inay jiraan adiguna maad clipka u duubtid oo u gelisid youtube-ga channelka bartaad ku leedahay youtube-ga markaa asxaabta moogaani baan ku leeyahay channelkeenu waa channelkaagii channelku waa channelkaagii waxa la riyadaada rumee insha Allah riyadana noo rumoobi doonta haddii ilaahay ka dhigo waxaan leeyahay like subscribe iyo share dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh